Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa Masar وسؤال سماه عكسه كده سوفيت ideology كشري ماشي على جسار إثيوبيا ولا عليه إنما عدوين إنما دنا وذاك برناي وحي ربع متخانة هنا دي من هنا نولان هنا نولان وإحنا كومو أكلي كنا فصيح معي هراي الله نحر ستيفن أنا دي جيريوتي بواحد تري عن وضع تشن ماينو عن كوت هليو إيتالي الميسيد أدو إيتالي ولا كوت هلي مايو عن كلا تجي ماينا تبتاسي نوع هانا ساد وحماشة أو تاجرينا وابدنا أهينو موتشيو عدو بيسو وصاحب marka arintaasi waxay noqonaysaa in guddi qaran la magacaabo laga soo shaqeeyo xubnaha dawladdu ay ku jiraan dadka aqoonyahanku ay ku jiraan dadka ganacsatada lagu daro wax garadka Soomaaliland lagu daro qurba jooga qaar laga dawladda Masar taageeradeedu ma aha mid aga badan ku fadhiyo way taageerada Masar markaynu eegno si dhaxgalino madaxweynaha Masar iyo madaxweynaha Soomaaliya shirkadkooda qabtay Qaahira madaxweynaha Masar kii Soomaaliya la taagano soo ku taageerina buu haddana diblomaasiyadu bahdilay oo ku sheegayeen wadan baaba ka yimid oo wadan macni bahdirada uu dhasay lafteedu waxa muujinaysaa in aanu wax taageero rasmi ah u hayno Soomaa walaal horta taageerada midna waxa weeyaan waa moral support oo marka especially marka diplomatic arena la joogo mid waxa weey waa taageero aad u rabto inaad wadankan u muujiso morally midna waxa weeyaan taageero aad u muujinayso because danaa kaaga jira سؤال بو سويدينيا مسؤولينta Masar hadda taageereen u fidiyaan dawladda federaalka Soomaaliya diyaar ka waa su'aasha ugu horeysa Sweediniana meesha ugu soo baxaysa waxa weey in case uu taageero Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa Masar su'aal sama maxay ku soo kordhin kartaa Soomaaliya maanta Ethiopia ma weerari kartaa ciidamo military awood lama leedahay dhaamka Ethiopia ay dhisatay ma ka dumin kartaa biyaha xidhanka la sameeyay ma ka sii deyn kartaa أمن الدرهم كوسا بكرتها جودها إثيوبيا كلا قيمة كوسا ما يكرتها وحاسودنا حقيقة هريالة أيوة أركي وحكلوا أجي إن عيدا بدي إثيوبيا كونفرت الصومالية سلكين من الترية وكله كلين عيدا دقيقين وقلان شهية وقلان شلعان دولة الفدرالية الصومالية مركب حقيقة سعتنا كما قرصونا وحماشة أو تاجرينا وابدنا أهينو موتشيو عدو بيسو وصاحبك معناها انترست كيسكو هي إثيوبيا يو مصر اتكستو كسو هرجيسانيسا وانكو تاغيرنا لكن كالقعيل سومالي لو قبو هي انترست سومالي ودفاعي مدكودنا كما جرتو واي ها انت كا غدبنا بل تاغيرada heshiiska mucaaradii ka horin hadana gudbino hadalka madaxweynaha Soomaaliland Musabbix Abdi habeenooda hadlay in arrin badan kala duwan heshiiska badan ku jiro ay ku hadlay hadalkiisa dad soo qabto nuxurkiisa heshiiska inta ku saabsaneed ma noqonay waxa waan dhageystay laba shay baa iga soo baxay horta murankii badnaa ee bulshada ku jiray inkastoo madaxweynaha ku ficnay inuu markuu soo laabtay warbixintan oo kale uu TV qaranka siiyo laakiin haddana la tashi badan oo uu sameeyay ururadii mucaaradku la kulmay wuxuu la kulmay xubnihii mas'uuliyiintii dawladdiisu la shiray مسؤولينتي برلمانك قاركود بولشري كدب وربحنتن بولشده سي وربحنت بولشده ومدحوينه سينيو معنتا isaga دستوريا dalka Soomaaliland maamula isaga madaxweynaha waa kelmadii u dambeysay ee qaranku ku go'ay maadaama uu yahay kelmadii u dambeysay ee qaranku ku go'ay madaxweynuhu warka uu noo sheegay oo wixii macnaha uu heshiis ahaan dawladda Itoobiya kan isagoo garab fadhiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu yiri Soomaaliland marka la aqoonsado ayaan dhulka kareynaa badan waana qodobkaasi inuu ku jiro madaxweynuhu waliba muhiim u yahay madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliland ba uu cadeeyay madaxweynuhu wixii inta ka dambeeya sidee loo galayaa sidee loo gaarayaa ayaa ku xigta marka wada tashiga baa imika ka furan in madaxweynuhu mas'uuliyiinta dawladdu inay magacaabaan guddigii marka ka shaqeyn lahaa soo dhisi lahaa heshiiskaasi sidii uu noqon lahaa heshiis taabagal ah Soomaaliland danteedana ilaaliya at the same time amnigeedana aan halis ku keenin karin
marka arintaasi waxay noqonaysaa in guddi qaran la magacaabo laga soo shaqeeyo xubnaha dawladdu ay ku jiraan dadka aqoonyahanku ay ku jiraan dadka ganacsatada lagu daro wax garadka Soomaaliland lagu daro qurba jooga qaar laga daro kadibna inta la sameeyo guddi madax banaan ay diyaariyaan heshiis sidii ugu wanaagsaneed in heshiiskaasi qayb libaax leh looga qaadan lahayn inagana danteena loo ilaalin lahaa faa'iidadina loo ilaalin lahaa waxa la wixii risk iyo carqalad iyo dhibaato ka iman karta sidii looga hortagi lahaa in falowga la qabto marka madaxweynuhu wuxuu shaki meesha ka saaray inaan horta wax la iibiyay oo sidii baasha ololaha la inagu qaaday dawal balka soo galay wax dhoolo la iibiyo Itoobiya laga iibiyay inaanay jirin inay kira tahay inay cadad go'an leedahay waqti go'an inay leedahay inay 20 kilomitir tahay intaba madaxweynuhu sheegay badalkeeduna inaanu kaliya ahayn aqoonsiga in mid kale oo iyaduna arrimo kale dhaqaale ganacsigana inuu dhexmari inuu ku jiro marka aqoonsigu inuu ka horeeyo in ciidamada la soo dejiyo sharciyan marka laga hadlayo aqoonsigii iyo heshiiska Itoobiya heshiis ma la gali kartaa Soomaaliland iyadoo aqoonsan Soomaaliland dalahan waa aqoonsan heshiis ma dhici karaa si dadka shakiga looga saaro mid baa jirta waxay ku xiran tahay imika waxa jirta dawladda Imaaraadku maalgashi bay ku sameysay hay'adan DP World dawladda Soomaaliland bay maalgashi ku sameysay markii uu inoo yimanay wada hadalku dad xasuusataan waxa ku jiray saldhig military oo Imaaraadku leeyihiin iyo dekada Berbera oo commercial oo la ballaariyo baarlamaanka loo geeyay baarlamaanku wuxuu soo celiyay dood badan kadib in dekadii la ballaariyo commercial laga dhigo laakiin saldhig military wala approval garan waay dawladda Imaaraadku condition ah inaguma xidhan haddii inta ay siisan wadana aqoonsanaya isaaf garad wuxuu ahaa dhaqaale kaliya ku salaysan laakiin inaga heshiiskeena ku salaysan waa aqoonsi iyo kira dekadeen ha waliba bad waa kira bad iyo aqoonsi waa meesha uu isfahanku ka bilowday hadduu midkood meesha ka baxo isfahanku meesha ka baxay ma suuragelayso mid kale Soomaaliland aqbali mayso iyadoo la aqoonsanin inay saldhig military dawladda Itoobiya ay ka karayso ay deegaan ahaan u keento صح liability bay ku noqonaysaa ha marka loo eego sharciga caalamka waa la gali karaa hore noola galay oo hore u soo dhacay iyadoo lagu aqoonsanay heshiis la gasho dal kale Taiwan lama aqoonsana waxay heshiis kula jirtaa dalalka reer Yurub European Union ka waxay heshiis kula jirtaa dawladda Mareykanka ah saldhig military buu Mareykanku ku leeyahay Taiwan mana aqoonsana dawladda ma aqoonsana صح dalka Mareykanka marka aqoonsiga marka qaarkood waxa ka weyn danaha ka weyn marka sharciga ka hor imanaya laakiin maxaynu ka faa'iideynaa ilaa Itoobiya dhaqaale badan oo inaga dhaqaaleena ku kabto maanta ma iyada dhaqaale u baahnaa uu kobcaya dhaqaaleedu waa run laakiin baahida dalkeeda taala dhaqaaleeda ka awood badan marka intay dhaqaale soo qaaday inaga aynu horumariso ma hayso waa clearkaasi marka maxaynu kaga bedelaynaa wax kale jiraan exactly marka isfahankaaba wuxuu ku bilowday sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha kala fadhiyo oo warbixintiisa ku sii daayay inuu Soomaaliland aqoonsi loogu bedelo Itoobiya laga kareeyo dekad warkaas marka wixii cidii ka sameynaysa cidii ka sameynaysa si kala fasiranaya cidii inay wareejisan rabto hadalka qalloocisan rabta aan heshiiskana qayb ka ahayn laga dhageysan ma xaqiiqadu waxay hor imanaysaa laba qof heshiis waa cidii heshiis waa wax masaki aynu hadda eegno dadka reer Soomaaliland dibad iyo gudaba jooga heshiiskan madee qayb uu kale qofka soo reesay qayb uu ka yahay heshiiskan madaba dalkii dawr dhashay exactly maxaynu u soo jeedinaa maxaad kula talinaysaa dadka reer Soomaaliland taageero shacab iyo mid siyaasadeedba heshiiskan maanta u baahan exactly horta mid labaan kala saarayaan shacabka reer Soomaaliland meesha doonana ku nool ama dalka joogan ama dibadda joogan waxa laga yaabaa in looga dhaadhiciyo arinta cadaawadda Itoobiya iyo Soomaalida ka dhaxaysa taasi waa fabricated story weeyaan waxay ku timiday dawlad aan sharci ahayn oo xukunka afduubatay ayaa inaga dagaal toos ah la gelisay dawladda Itoobiya dawladdii aan la dagaalanay Itoobiya way duntay صح من دست حلا مريم دولديس way ka baxday meesha
waxa ka daba yimiday TPLF kii dawladda Tigreega ka Malasanaawi baa ka dambeeyay nidaamkii dastuurka ee dawladda Itoobiya ay ku shaqeynaysa waa la bedelay dawlad federaal oo qoomiyada ku salaysan baa laga dhigay completely aragtidii dawladda Itoobiya siyaasadeedii hore ahayd cadaawada ku dhisneed in dhul Soomaaliyeed uu la xoogo iyo xil la qaadi kara in la qaado mindista Hayle Maryan iyo aragtidiisa ku salaysan meeshay ka baxday waxay yimid dawlad haddana kale Abiy Ahmed baa yimid oo aragtidii hore ee Malasanaawi ay isku dhow yihiin in wadamada dariska nabad lagu noolaado in la ganacsado in la horumariyo marka arintan ah inaguna ajaladiisa aad barayno ku qufulnaanayna oo cadaawadii Soviet Unionka iyo nationalismkii baynu maanta dhan sidayna cid kastoo inaga aragti duwan ma la dagaalamayna aqligaasi waa kii Soomaalideena damiyay ku dhamaaday 30 sano Somaliland ay dawlad leedahay maanta 30 sano Somaliland maanta dawlad leedahay de waxa jiray xilliyada qaar dawladda Somaliland aanay awoodin in ciidamadeeda mushaar yar ka bixiso dawladda Itoobiya dhaqaale iyo military bay awooday xuduudeena ma bay ilaaliso joogtaa ya Somaliland waxa ku nool تقريبا 4.5 إلى 5 مليون بكنول إذا ماذا إثيوبيان كي أكتف كا عيش 2 مليون هل كي عسكري هل كي قفر رسم الله نسد عسكري إثيوبيان الله صدر كرا أو ولي بشقيني كوي رساف كانوا كجرن هذا الله صدر كرا معد بين جور تاجر بدون سوماليات بين جد دفاعي كرتا يا تبون كده الدفاعي كرو ودبين جد دفاعي كرتا حقيقة هذا ماشى تعلق واحد تايدت وحل أقبلي إن بدل قوة النولادة الله وذا كان حسده horumar laga sameeyay shacabka Soomaaliyeed marka way fahmaan ajaladiisa aad barray hore inagu qofulneede Soviet ideology ku jiray meesha laga saaro Itoobiya walaalaheena maaha cadawgeena maaha dana wadaag baanahay arintan waa in shacabku fahmaan danteenu xageena geysay danteenu waxay nageysay inaan nabad ku wada noolaano danteenu waxay nageysay inaan dhaqaale wadaagno danteenu waxay nageysay inaan wada shaqeyno danteenu waxay nageysay inaan amniga ka wada shaqeyno inaan iyaga colaad ku abuurno maaha in iyagu colaad inoo abuuraan maaha intaasoo danteena maanta in lama garan danteena in raacina shacabka Soomaaliyeed hadii inta uu fahmaan daliya dibadba sheekadan beer la xawsiga ee especially siyaasiyiintan sida qalooca wuxuu sheegay koonfurta Soomaaliya in ay leeyihiin waa dhul Soomaaliyeed baa la iibiyay dhul Soomaaliyeed baa dawlad kale la siiyay lamana iibin لما نسينا أرنتاسي مدحوينون وعدي الشرعية اللي هو سوى واحد كرام بدو سومالي اللي أنت أول كرام بدو سومالي بدي يجي ما كرام سومالي ما بربان بينا اللي ونس هينا هذا وحين نشكو هينا سوماليا كمان مدنهين أو دولة مدح بنان أو وحن ربنا لا قنصية باش عالم كلا تعمشينا نقلنا يقولوا وحيلين مايا مقدش هذا أفضل رانيسان أقنصينا اللي نسين مايو waxa kale dawladda Soomaaliyeed wada leedahayna daaftana wadaagi mayno daaftana wadaagi mayno deegaanka waxa kamid ah heshiiska hawada waxa idin daafta la wadaago maamulkan la wadaago sidii lagu soo celiyay hadda daaftana iyaga gacanta haysta dibtana inaga nasaaraan وتسأله وير heshiisyadii 12 sano socday lagu heshiiyay hirgeli waayay marka nin aan ku ogolayn inaad baba horumar iyo inaad wax noqoto aan ku ogolayn special arrangement kii meesha laga saaray Soomaaliland inay beesha caalamka la tacaamusha laga dagaalamay waxa soo dhan waxa loo danleeyay inay Hargeysa u afduubnaato Muqdisho oo ay aqbasho wax alliyo wixii Muqdisho laga soo go'ay taasina horaan intaan isku daynay on 30 sano dawladda Soomaaliyeed kamid ahayn ay khasaare mooyaan wax faa'iido ka maanan keenin mana rabnaa anagu inaan khasaare kale iyaga u geysano ama khasaare kale anaga na soo gaadho anagoo walaalahayo jecel oo ogol ay leena idinkuna wax noqdo oo madax banaanaada anagana ogolaado inaan wax noqono madax banaanaada waan ceeb iyo colaad ku jiro si nabadgelyo Soomaaliya oo isku soo gudbina Soomaaliya صدق كاسر الصومالي هو مركز سمينيسي دروشوي لقبتي نبتقريض حسناتي أدون كورني إنه هم شرطي أو شيء سيد كالعلم بيوش لقينه أو الصومالي هنا مرئب مقتصم عمول كاللاضح تلفتي دو معها إن لابد أن يكون سكاري هذا باهيدي إنه ما مدعسنا شلي تباهيدي إنه وحمدي لابد كون سقال بقولي لحظة كي باهيدي إنه وحمدي لابد إن الدريف بوحة نسكك عيني نكميسي
gumaysiga talyaaniga iska saarayeen dowlad trusteeship ah oo waxa la siiyay 10 sano oo qaramada midoobay maamuleysay inagu dowladda ingiriiska iska saaraynay gumaysi la dagaalankii iyo gumaysi nacaybkii ayaa ahaa arinta kaliya ee namidaysa danaha kaliya namiday iyo inaynu haysanay riyadii ahayd in shan Soomaaliyeed la mideeyo markii aynu isu tagnay dowladda jamhuuriyadda federaalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya la aasaasay waxa meesha ka baxay in wax la qaybsado sidii ay iyagu ahaayeen waxaan sidanay un baa in yar loogu daray laga wada hadal qeyrado kacsan awgeedna lama wada xisaabtamin maanta midnimada waxa raba koonfurta Soomaaliya rabta Soomaaliland waxay rabtaa inay ka madax banaanaato aan Soomaalida la wadaagin siyaasad soo laba qodob oo kala fog maaha Soomaaliland warkeedu waxay ku cadeysay inay tiri anagu waxaan u rabnaa madax banaanida khasaare hore naga soo gaaray anagoo taxpayer ah oo cashuurteedii bixinayna ayaa diyaaradihii cashuurteeda lagu soo iibiyay inta la qaaday oo dawladda cashuurta naga qaaday intii hargeysa ka kicisay bay shacabka iyo hantideedii ku dumisay oo dawladda u jeedo in Soomaaliland helo caalamka inta loo geeyo xornimada loo geeyay anagu faa'iido ku qaadan cashuurtii anagana laga qaaday askarigan cashuurtiisa mishaarkiisa bixinayna intuu diyaaradihii anaga magaalooyinkii ka kiciyay magaalooyinkii shacabka ku dumiyay arintaasi waxay nagu riday trust shock waxaanan kalsoonidaasi maxaa soo celinaya dowladda Soomaaliya waxay tiri raaligelin baa laga bixinayaa waa la garowsaday wixii dhacay raaligelinta waxa ka horeeya maxaa garantiya inay soo noqon doonto haddii midnimadu timaado lagama wada hadal okay anaga warkaygu waxaan ku cadeynay inay arintaasi mar labaad shacabkayga ku dhacdo diyaarumayeen calaadna idinma hayno iyo xumaan nabadgeliyaan rabnaa idinkuna halkaa ku noolaado sharaf ku noolaado danihiina umurihiina idinku qabsada annagana ay umurahayaga iyo guryahayga anagu aan isku hagaajisano adduunyadan aan la tacaamulnayna fasaxa inta la isku hayso intaas ma Soomaaliya midnimada soo iyagu ma rabin waxa laga rabay laba shay inay soo bandhigaan sababta ay u rabaan soo bandhigida sababta ay u rabaan si uu soo bandhigi karaan maxay midnimada ku rabaan oo ay kalsoonida dadka Soomaaliland ku soo celinayaan miyaad aragtay hal qodob ay soo bandhigayaan ay leeyihiin waxa reer Soomaaliland lagu sameeynaya dib arintii dhacday u dhici mayso weligeed soo noqon mayso Soomaaliland waxa loo ogoliyay miyaad maqashay waxay rabaan ma taqaanaa hana dhiman hana noolaan waxna kuuma ogoliyay kuna fasaxi maayo horey Allah naxariistay fanaanadii geeriyootay baa waxay tiri aan wada tashan mayno aan ku taliyo italin maysid adigu itali waa ku talin maayo aan kala tagi mayna tabtaasay noo ahaanaysaa weeyii marka wali daraamada koonfurta Soomaaliya ka socota wali waxay ka garawsan laayihiin in la isku iman karo lana kala tagi karo who knows 100 years ka bacdin hadana Soomaalidu dib isku iman doonto baahideenu maanta ma midaysna iyagu amni bay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed digooda inay badbaadiyaan bay u baahan yihiin inay aqliyeystaan bay u baahan yihiin in siyaasadda awood iyo xoog lagu wada in meesha laga saaro loo baahan yahay in awoodda shacabka lagu soo celiyo doorashooyin loo qabto loo baahan yahay halkaasi baahida taala Soomaaliland taala way ka duwan tahay Soomaaliland horumar dhaqaale rabtaa horumar tacliimeed bay rabtaa kaabayaasha dhaqaale in la horumariyo rabtaa siyaasadeedu majuur bay noqotay amnigii way ka adkaatay wixii iyaga affairs-kooda gudaha dhexdooda iyaga Soomaaliland dhexdooda u taalaa inay xaliyaan laakiin in hay'adii dawladda la dhiso in nidaam dawladeed oo kala dambeyn la sameeyo in dhammaan hay'ad kasta dawladda kamid ay shaqeyso iyadoo waliba foreign interest iyo caawimaadaan ku jirin oo dhammaan taxpayer-kii Soomaaliland wixii loogu shaqeynayo labada baahiyood maanta isku mid ma marka labadeeni baahiyood baa kala duwan adigu walaal nabarada ka soo kabo soo bogso institution soo samayso dawlad soo noqo taageero waliba dad iga baahatana iyo tababar iyo ilbaxnimada dad uga baatana hargeysan kugu qabanna waan kugu taageerina macdina caamniga laakiin xasadka iyo cunfiga intaad siyaasadda ka saarto walaalka oo ogolo inuu wax noqdo adduunyada la tacaamulo isagoo walaalka waliba garabkaaga midig
marka waxa weeyaan idinkuna tashadana waan tashano marka kala baahiyanahay waynu kala baahiyanahay ina uu socon kala duwan yahay idinkuna tashada weeyaan waan tashano exactly xumaana meesha ma tahay ma talo walaalnimada warkeeda exactly sirki Soomaaliya laga tagi maayo Soomaaliya qof ka tagay ma jiro laakiin dad duruufayn ma kala duwan marka duruufayn ma isku qabaneen qofka saxashada sida uu shaqeysto exactly waa maasanta Ahmed Saki ayuu kaasi ahaa oo inuu falanqeynayay heshiiskii badda dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia ee ka wada bisha ku dhexmaray magaalada Sababa iyo falcinaha keenid caalamka taageerada uu helay ee bariyahan dib soo kordhisay iyo waliba dadka reer Soomaaliland wax lagu taliyay barnaamijkaas ku saabsanaa inta barnaamijka midna mid ku muddo waxaad ka tagayna. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam.